waxa uu kamid yahay dalalka sida weyn ugu tiirsan gaaska dabiiciga ah ee Ruushka ayadoo dalalka reer galbeedku ay doonayaan inay arrintaasi adkeeyaan ayaa waxa uu sanad walba ka helaa gaas dabiici ah oo gaaraya 29 bilyan oo cubic meters taasoo ka dhigan in 40% in ka badan gaaskiisa uu ka soo dhoofsan jiray dalkaasi ma laha nuclearka laga dhaliyo gaaska dabiiciga sidoo kalena korontadiisu ma aha mid ay inta badan biyaha ku suubiyaan laakiin se waxay ka helaan gaaska dabiiciga raqiiska ah dalalka reer galbeedka ayaa si aad u doondoonaya inay jilbaha dhulka ugu xidhaan dalkaasi hase yeeshee go'aan kale oo u eeg dalalka reer Yurub mar kale ay hungoobeen ayaa wuxuu ka dhacay magaalada Vienna ee dalka Austria saraakiil ka socota dalalka loo yaqaan dalalka ururka dhoofinta petroolka the Organization of Petroleum Exporting Countries loo yaqaano ayaa waxay sheegeen in aan dalalkaasi aan la iska indhatiri karin awoodda dhinaca wax soo saar ee Russia kolka ay timaado gaaska dabiiciga saraakiisha halkaasi ay kula ballameen dalalka reer Yurub ayaa sheegay in la dhumi doono 7 milyan oo foosto oo maalinle ah taasoo Ruushka uu soo saaro hadii suuqa laga riixo waxaana sheegeen inaysan taa bedeli doonin madaxa guud ama xogayaha guud ee ururkaasi Maxamed Barkindo ayaa waxa uu sheegay in gabi ahaanba ay tahay arrintaasi arrin iska markaasi macaangegnimo ah hadii la isku dayo qayb kamid khudbadiisii koob kamid oo ay aragtay wakaalada wararka Reuters ayaa ku tilmaantay inay ahayd war iska cad oo muujinaya in dalalka reer Yurub ay dhabaxa kala wajiga uga dhacday waxayna sheegeen inaysan soo saarka Ruushka ku bedeli karin arrintaasi